marka lagu dhaho maasoniyad illuminatig iyo fardooladii macbadka iyo waxyaalo kale oo badan markaas dadku waxay ku wareerayaan waxay yihiin yaasalkoodii halkay ka soo jeedaan xogahan waxay ka wada sameeyeen hal ujeedo dadkana waxay isku muujiyaan wajiyooyin kala duwan kusoo dhawow barnaamijkeena oo fidsan maasoniyadu waa urur ku dhisan kalgacal walaaltinimo iyo bini'aadantinimo illuminatiguna waa dad waxbarashada iftiinka isticmaalka caqliga falsafada ugu yeedha dadka fardoolayda macbadkuna waa wadaado askarha oo loo xil saaray amniga dib si qarsoodiyaha ku caabuday shaydaanka waxaase u qoto dheer illuminatiga taariikhyahanadu waxay sheegaan in kooxdan uu asaasay nin yahuudi ah oo la odhan jiray aadam watshab laakiin waxaa la sheegaa inuu asaasuu ka horeeyey aadam watshab milaadiyada ka hor qarnigii lixaad waxay ka soo bilowmanayaan adii lumay ee yahuudda dadka illuminatigii sababaha isku arkaan inay dadka ugu sareeyaan oo dadkana iskaga saaraan waa falsafada haystaan waa kutubka haystaan ee baybalka si aynu fahamno illuminatiga waxa qasab ah in aynu wax ka ogaanno kitaabka baybalka xoogo ku qoran waxaa la sheegaa dhulkeena ku soo dhicin waa hore malaa'igo kala duwan intaanay soo dhicin malaa'igtuna inay samada ku soo dhex mareen dagaal culus oo isla markaana kuwii laga adkaaday ee dhulka ku soo dhaceen markaa kuleeya malaa'ig baa samadaas ku soo leysay qaar baa dhulka ku soo dhacay maaha mid saxa oo maaha mid ka dhigan inay runtii laakiin waxaan doonayaa inaan fahamno kooxaan shaydaan caabudka waxay yihiin iyo waxay rumaysan yihiin malaa'igtii markii ay dagaalameen kuwii laga adkaaday waxay ku soo dhaceen dhulka waxaana ka mid ahaa kuwii dhulka ku soo dhacay jinka iyo shaydaanka iyo qaar kale oo duwan malaa'igaha markay dhulka imaadeen waxay jeclaadeen gabadhihii bini'aadanka kadib waxay guursadeen gabdho bini'aadan ah dumarkaasuna carruurta u dhala malaa'igta waxay noqdeen qaar dhinacna ka ah bini'aadam qaarna ka ah malaa'ig waxaanay saas isku moodayeen inay ka sariyaan dadka oo dhan sida ku xusan buugga Genesis 6:4 dagaalka malaa'igahana waxaa lagu soo qaatay buugga waxyiga 12:7 dadkii dhinaca ka ah bini'aadam dhinacna ka ah malaa'igta waxay ku noolaayeen magaalada qadiimiga ah ee Atlantic magaalada waxa ku noolaan jiray oo la sheegaa dadka dunida ugu horumarsan magaaladan waa la halaagay oo badda ay ka hoos martay ilaa maantana halkay ku taalo si rasmi ah looma oga haddaba malaa'igaha markay guursadeen dumarka waxay dadku wax ka bareen cilmigaas oona dadku aqaanin ama aanay dadku baran weli cilmigaasna wuxuu ahaa sida dadka loo maamulo iyo sida dadka lagu khasbo waxaan aanay rabin aqoontan ay dadka bareenna waxay ku dhisan tahay Kampala iyo Kodism aqoontanna waa habka loo sameeyo sixirka dadkan iyagu waxay isku arkaan inay ka soo jeedaan dad aan bilaadan ahayn dadkaas oo haysta furaha dhulka waxaana heshiis la garan oo heshiis la sameeyeen Lucifer oo ah shaydaankaas oo ka dunida ugu weyn qaarna waxay sheegaan inuu yahay wiilka shaydaankuna wuxuu awalkiiba dadka baray inay isaga sujuudaan waxuuna dadkii faray inay sameeyaan manhajkiisa shaydaanka ah Luciferna waa darajada ugu sareysa kooxahan suurtagal ma aha in qof si fudud ku gaaro ama uu gaadhaba dadku iblis ma la kulmaan mise lama kulmaan waa su'aal jawaab u baahan laakiin iyagu waxay aaminsan yihiin inay haystaan waxaan dadka inteeda kale aan haysan sidoo kale iyaguna waxay aaminsan yihiin farac ahaan iyo asal ahaanba inay dadku dunida oo dhan ay ka sareeyaan taasuna waa malaawaal ay iyagu aaminsan yihiin oo bini'aadam waa bini'aadan markii ay iska dhaceen dadka ka sareeyaan waxay sababtay inay sameystaan dunidaas cusub oo iyagu maamulaan wuxuu Nabi Maxamed sheegay marka uu soo baxayo Masiix Dajaal ama kiisha masaxnaa inay soo dhaweyn doonaan dad aad u badan kuwa ugu horeeya ee soo dhaweyn doonana waa yahuudda illuminatiga ah waxay hadda si diyaarin ama diyaarintiisa ay ku jiraan soo dhaweynta Masiixu Dajaal mashruuca Dajaal ugu soo dhaweynayo ee mashruuca shaydaankuna waa isku hal waxyaalahanna waa waxyaabaha aaminsan yihiin iyagu waxaanay rabaan inay duduna ku dabaqaan waxay dadku ugu sharaxaana si ka duwan caqiidadooda dadkana maadaama aaminsan yihiin inay ka soo jeedaan malaa'ig iskuma dhex qasma dadka loo ilaaliyo inay kala tagaan ama si loo ilaaliyo inay xididkoodu kala faafo waxay sameeyeen sharcigaas oo ah inay iyagu iskuursadaan dadkan maanta waxay awood u leeyihiin dunida oo dhan meel kasta inay ka sameeyaan faraacino dadkan waxa ugu adagay hadda xataa aankaas ay meel ka maray garan lahayn waa muslimiinta si ay muslimiintu u burburiyaanna waxay dhexdooda ku tuureen ama dhexdooda ku faafiyeen jaajuustaas oo ah qaasa muslimiinta kale u labaysanaya qaabkooda kale u dhaqmaya oo laga garaneen muslimiinta waxay wadamada muslimiintana ka abuureen ururo kala duwan sida argagixiso hadafkooduna waa inay dadka nacsiyaan islaamka marka sameeyaan ururadan waxay rabaan in dunida oo dhan laga naco islaamka meel kasta ay joogaan maanta tan waa mid saacad uga muuqata dunida waxaase macquul ah in dad badan ka dhaadhacsan tahay in argagixisadu ay difaacayso diinta waxan waa geem oo dadku ma fahmi karaan wax dadka asaasayna maha gaalo laakiin dadka asaasay waa muslimiin jilayaal muslimiin ah
oo isla markaana ku soo qaatay landaraas ama lacag ku soo qaatay sababtoo ah wadamada waaweyn ee xoogga leh kuma adkayna ciidan tiraan argagixisadan iyo waxyaalahan kale ilaalinaya muslimiinta difaaciyaan balse waa geem loogu talagalay dadka aan muslimiinta ahayn si loo nacsiiyo diinta islaamka tanna waa mid ka mid ah siyaasadaha immunaatiga ay leeyihiin siyaasadaas ah kala qaybi kadib xukun waxaa si mustaxiil ah inay muslimiintu mudoobaan laga soo bilaabo dowladdii cusmaaniyiinta sidii loo burburiyey oo loo kala qadqaaday ayaa waxa la gaarsiiyey heer ay maanta isku soo noqon kari waayaan daawada maanta intaas ayuu nugugay barnaamijkeennii inta ku kulmayna barnaamijkan barnaamij la mid ah waxaan naga tegaynaa sidaas iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh si aad u hesho muuqaalo badan hadda subscribe dhe oo ka mid noqo kumanaanka qof ee ku xidhan channelkayga Xamse Jooqane nagu soo bir caalamkan cusub adoo ka faa'iido doona xogooyin iyo dhacdooyin la yaab leh